السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا ورئيسي gaar oo aan la yeelan doono gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida Faransiiska Qadar Maxamuud Jaamac oo ku magac dheer Jaamac Yare gudoomiye kusoo dhow wareysiga maanta aan la yeelan doono aan kula yeelan doono waan dhawahay walaal weyn aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay waan ku faraxsanahay inaan maanta halkaan aan wareysi ugu siinay aad baan kaaga mahadcelinayaa gudoomiye waqtiga qaaliga maanta aad noogu ogolaatay inaan wareysi kula yeelano marka koowaad waxaad warbixin naga siisaa xilligan aad jaaliyada Soomaalida Faransiiska aad aasaasteen oo aad dhidabada u taagteen goorma ayay ahayd bismillahir rahmaanir rahiim waxay ahayd walaal kowdii bishii saddexaad 2014 waxaa loo aasaasay baahiyo badan oo waddankan ka jiray gaar ahaan Soomaalida baahiyadeeda inay daboosho badan waxaa la soo kulannay caqabado kala duwan asahaati caqabadahaas waan ka soo soconay waxay qabatay jaaliyadu waxyaabo badan oo number 1 ay ka tahay dhisidda xiriir bini'aadanimo iyo mid walaaltinimo oo Soomaalida dhexdeeda u doodista xuquuqda Soomaaliyeed ee waddanka Faransiiska iyo in dadweynaha Soomaaliyeed lagu wacyigeliyo maadaama waddankan yahay waddankii aqbalay qaxootinimadooda xuquuqda ay ku leeyihiin iyo waajibaadka laga rabo waxay jaaliyadu aad iyo aad ula soo shaqeysay waaxda wasaaradda arrimaha gudaha u qaabilsan qaxootiga iyo hay'adaha ku shaqo leh qaxootiga waxaa jiri jiray waayadii aan waddankan aan aasaasnay jaaliyada Soomaaliyeed waddanka Faransiiska dadweynaha aan ahayn Soomaali oo warqad ku qaadan jiray Soomaalinimo oo ka yimid galbeedka Afrika kuna hadla luqadda Faransiiska waxaa dhicin jirtay qofka Soomaaliga ah markuu tago meeshii lagu qaadiyay wareysiga inuu la kulmi jiray dadweyne kale ama turjumaano aan afka Soomaaliga ku hadlin kuwaas oo qayb ka ahaa in dadka Soomaaliyeed ay waddanka wax ka waayaan qofkii soo la garanayo Soomaali inuu yahay Soomaali ka yimid markuu la kulmo qof kale ajnabi ah oo luqad kale ku hadlayo diin ma la siin jiray jaaliyadu way ka dagaalantay waxay u qabatay dadka Soomaaliyeed loo yarin waxay ka saartay dadkii aan Soomaalida ahayn ee turjumaanada ku shaqeyn jiray waddankaana dib weyn ku hayn jiray Soomaalida waxay balaaskoodii ku bedeshay dad Soomaaliyeed oo luqadda si standard u hadlaya waxay in badan la shaqeysay oo ay ku dadaashay jaaliyadu inay dadka Soomaaliyeed waddanka warqad ku yeeshaan qofka Soomaaliga ee maanta waddanka yimaada ee qaxoonti dalbada ee waaxda u qaabilsan wasaaradda arrimaha gudaha waaxda u qaabilsan qaxoontiga ee Afriil ay soo diiday jaaliyadu waxay siisaa warqad aqoonsiga warqadaas oo ku helo sharci inta badan okay haddeen u soo noqono su'aasha xigta gudoomiye waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo mar kale xiriir noocee ayaa idinka dhaxeeya safaaradda Soomaalida ee Faransiiska iyo haddii ay ahaan lahayd dawladdan ay martida u nahay Faransiiska waxyeelada kala duwan sida immigration-ka ama OFI ama dhammaan dawladda xiriir noocee ayaa idinka dhaxeeya xiriir wanaagsan ayaa naga dhaxeeya dawladda Faransiiska wasaaradda arrimaha gudaha ayaa xiriirkeedu wanaagsan yahay maxkamadaha ayaa xiriirkeedu wanaagsan yahay waaxyaha ku shaqo kale amniga waddanka ayaa xiriir fiican la leenahay dadweynaha Soomaaliyeed waxaan inta badan ka wacyigelinaa qalbiyada waddanka ka dhacay inay ka qayb qaadan waxa ku sameynaa koob isdhexgala oo aan ku mashquulinayno ama aan rajeynayno in dadka dhallinyaradu ay kaga waantoogaan dhibaatooyinka waddanka ka dhacaya xiriirkeenu annaga iyo safaaraddu aad buu fiican yahay wax dhibaatay mana dhex yaalaan waa wada shaqeyn baan leenahay dawladda Soomaaliyeedna laftkoodu waa iska warhaynaa ma kala warleyn safaaradda wada shaqeyn fiican bay idinka dhexaysaa su'aasha kale haddii u soo laabano waxaa jirta in Soomaalida ku sugan qaaradda Yurub dhibaatooyin badan ay ka haystaan xagga aqoonsiga markii loo baahday in qofkan la cadeeyo inuu yahay Soomaali ama jinsiyadiisa la soo cadeeyo ha noqdo warqadaha dhalashooyinka maxaa anigaas ka qabataan oo ma jiraan warqado aqoonsi ah bixisaan ama inaad cadeysaan qofkan inuu Soomaali yahay oo kale mararka qaarkood waxaa dhacday in qofkii isagoo Soomaaliya lagu dhago yiraahdo matid Soomaali soo cadeey waanu qabanaa shaqadaas waxaan u sameynaa dadka Soomaalida waxaan ka qaadnaa wareysigaas oo qofka cadeynaya halkii uu ka yimid Soomaaliya deegaanka uu ka soo jeedo inuu qofkan Soomaali yahay in kale markii wareysi caalamka Soomaaliya sidoo uu yahay gobolada Soomaaliya inta ka kooban yihiin
marka su-aalaadka ugu muhiimsan ee qofka looga baahan yahay soomaalinimadiisa aan qofkaas weydiino ayaan waxa u sameynaa warqad aqoonsi. warqadaasoo wasaaradda arrimaha gudaha laga aqoonsan yahay, dowladda faransiiskana xafiis kasta oo soomaalida ama ajnabiga la shaqeeya uu aqoonsan yahay. waxaa igu maqaalaa in aad dhowaan hadduu ilaahayd ma aad samayn doontid processkii ahaa sida jaaliyadaha kale meel ay soomaalida ku kulmaan oo ku caweeyaan, ama dadka kale ee soomaalida ee martida ee wadankan imaanaysa meelo lagu soo dhaweeyo kale. hawshaasi xaggee idin maraysaa iyadana? waan wadnaa insha allah, waxaan rajeynaynaa bilaha soo socda inay hirgeli doonto haddii alla idmo. waa heegsigeena koowaad, waxaan rajeynaynaa sida ugu dhaqsaha badan inaan shaqada ku qaban doono. waxaan kaloo wadnaa koob isdhexgalka soomaalida ah oo dhici doona 19 bishaan ka dhacaya magaalada Paris. koobkaas oo ay kasoo qaybgeli doonaan ilaa 8 kooxood. waan ku qaban qaabinay inuu socdo hal maalin haddii alla idmo. waxaan rajeynaynaa koob fiican oo dhalinyartu ay isku dhexgalaan inuu noqon doono. waxaan doonay inaan ku weydiiyo, markii la sameynayay jaaliyad ama urur ama howlo kale oo Soomaali isugu imaanayso, waan ognahay aad buu dhib badan yahay. caqabada noocee ayaad ka soo marteen sameynta jaaliyadan? mase jiraan dadka caawiyay in jaaliyadan aad sameysaan, mise waxa weeye safaaradda ma idinka caawisay, mise Soomaali wadanka degan ayuunbaa idinka caawisay inaad jaaliyadda sameysaan? jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Faransiiska markaan u dhaqaaqnay inaan sameyno, waxaa naga caawiyay lawyerin ku takhasusay sharciyada wadankan. ayaga ayaa wixii aan u baahnayn oo taskiilaha lahaa nala fududeeyey. dowladduna waa na caawisay Faransiiska, oo aad iyo aad bay noga caawisay inaan heerkaas soo gaarno, shaqeyno, dadku ay yeeshaan jaaliyadii meel kusoo hirtaan. iyagana waa uga mahad celinaynaa shaqadaas wanaagsan oo ay nala qabteen. su-aasha xigta guddoomiye, Soomaali waxaa jirta faldambiyeedyo gala, ama hadday noqoto dhexdooda ama hadday noqoto mujtamaca kale ee wadanka degan, ama xabsiyada qaarkood ay ku jiraan. sidee ula macaamishaan dadkaasna? wallaahi waa jiraan dadkaas Soomaaliyeed xabsiyada ku jira, kuwii dambiye galay oo wax dilay waxay hoos joogaan sharciga Faransiiska. qofkaasina wuxuu marayaa qof dila ama dhibaateeya xeerka iyo sharciga dowladdan u dhigday. waxaa jira marka dadkaas ku dheeraan mayo, waxaa jira dad kale oo Soomaaliyeed oo maskax ahaan dhiman ama waashay iyagoo wax hamiga ay lahaayeen waayey, wadanka ka waayey, isla markaasna xabsiyada ku jira, qaybtooda isbitaalada ku jira. waxaan dadkaas dowladda Soomaaliyeed uga codsanayaa inay gargaar u fidiso, safaaradda Soomaaliyeed u soo mariso. gargaarkaas oo noqon kara hadday noqoto warqadihii lagu celin lahaa ama wixii kharashaad ah oo wadankooda ugu noqon lahaayeen. waayo waxay ka yimaadeen, waa garan karnaa wadanka aad u fog yahay, wadankan bay joogaan, wadankan sharciga kuma haystaan, xabsiyay ku jiraan, maskaxdoodii way dhiman tahay oo waxay noqdeen dad nolosha ka dhacay. waana dad tiradooda aysan yarayn oo 1 iyo 2 iyo 3 maahan, laakiin waa dad number tiro badan ah, wadankan aad ugu soo batay. marka dowladda Soomaaliyeed baan number 1 mas'uulka ah oo mas'uuliyadda askale, waayo dadka Soomaaliyeed ee matasha waxaan uga codsanaynaa inay dadkaas caawiyaan wixii karaankooda. insha Allah waxaan rajeynayaa in safaaradda Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya codsigan inuu gaaro ay kasoo jawaabi doonaan dadkaas Soomaalida ee qaarkood ku xanuunsan wadooyinka Paris iyo meelaha kale ee wadanka Faransiiska. ma jiraan waxyaabo kale oo aad ka caawisaan Soomaalida, sida Soomaalida cusub ee wadankan Faransiiska aad u soo galaya? waayo muddooyinkanba waxaan lagu maqaalaa in Faransiiska ay Soomaali badan soo gaareen. ma jiraan koob aad ka haysaan ama waxyaabo kale aad ka caawisaan? waxaanu ka caawinaa dadka markay halkan yimaadaan oo ay yihiin markii ugu horreysay ay yimaadeen, warqadihii sidii loogu qoran lahaa, balaba loogu qaadin lahaa, dacwadoodii loo dhisin lahaa, wixii mataqaanaa khaldan oo ku dhex jiraan loo qaban lahaa. waxaad ogsoontihiin dadka Soomaaliyeed oo Faransiiska jooga intooda badan ama ku imaanaya aan ku wacyigelinaya in ay dhibaatooyinkii ay ka soo carareen. wadanka waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo kala duwan. marka dhibaatooyinkii ay ka soo carareen oo saxa inay sheegdaan, inay iska daayaan inay qof dacwadiis koobiyayaan oo ay meeshii la tagaan. waayo qofka Soomaaliga ahi 90% wuxuu xaq u leeyahay wadankan in la qaabilo, oo waa dadka la ogol yahay maanta in sharciyada la siinayo. laakiin waa inay ka taxadaraan dacwadda ay meeshii la tegayaan, waa inay noqotaa dacwad macquul ah oo wax lagu siin karo. aad baa u mahadsantahay guddoomiye. kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Faransiiska Jaamac. jaaliyaddan waxay ka mid tahay jaaliyadaha ugu awoodda badan qaaradda Yurub ay Soomaalidu leedahay. waxa ay sameeyaan warqadaha aqoonsiga in qofka Soomaali uu yahay markii ay ku dhagaan wadamada qaybtood.
halka safaaradaha Soomaalida qaarkoodna baasaboorada ay sameeyaan xitaa dawladaha qaar aysan aqoonsaneyn. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa wareysigii maanta ahaa. aad baa u mahadsantahay gudoomiye. wareysigana maanta halkaas ayuu noo joogaa. aad baan kaaga mahadcelinayaa.